waxbartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وعن وناكسن داودياشا قيمة بدن ميل والبدونة دافع دا عديقة داونيسان وولالكين معلين وريه إندوس oo idileh ku soo dhawaada mar kale iyo cashir cusub casharadani jarmalka luqadda jarmalka ee aan wada daraasan jirnay aan wada baran jirnay caawa waxaan idin wada cashir kale oo muhiim u ah aasaaska naxwaha grammarka luqadda jarmalka luqad sida hore u sheegaba waxa aasaas u ah oo muhiim ah qofka inuu fahmo garoonka diyaaradda meesha ay ka kacaysa ka caga qaadanaysa hadii si fiican uga qaadan diyaaraddu kici mayso qofku waa inuu fahmaa marka aasaaska naxwaha luqadda haduu luqadda naxwaha aasaaska uu fahmo waxa u sahlanaanayso oo u fududaanayso inuu jumlad sameesto inuu jumlad uu dhisto oo jumlad uu sameesto ayaa u sahlanaanayso marka inta aanan gelin marka insha Allah waa gali doonaa cashiro wada sheekaysiyo ereyo badan vocabulary iyo mataqaanaa wada hadallo badan inaanu oo maqal oo hatta cod ahaan u dhageysan doontaan aanu soo gelin doonaa laakiin waxaan rabaa intaanan gaarin in aan horta grammarka aan aasaaskiisa intii ilaahayna waafajiyo aanu mataqaanaa isla daraasin isla markaana aanu meel wada saarno اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وايه عشر كينا محوكو سابسين هاي عاوة صاحبيال هدي على إدمو هذا صبورة شرحات كوبان وحو عشر كو سابسين هاي أيام كو سوق عادنيا لكن وحان سمينيا عشر كا أيضا أو بلاك بورد كا كمبيوتر كا أنكو إدت جري أيان شاشة مدو إديسو سهر دونا inta waxaan ku bixin doonaa oo kaliya sharaxaad kooban waxa aan ka hadlayna ama cashirka uu ku saabsan yahay sida daraadeed waxaan soo dhigayaa cashirka description-ka waxaan description-ka u soo dhigaa wax kale ma ahan in aad ka koobiyeysataan ama aad ka dhigataan halkaas waayo waxa laga yaabaa sharaxaadida sabuuradan ama sharaxaada sabuurada editing-ka ee computer-ka aan soo saaro inuu ku noqdo mid aan clear ahayn oo aadan fahmi karin sida daraadeed si aad kugu sahlanaado waxaan sameeynaa description-ka waxa la yiraahdaa meesha hoose ciwaanka YouTube-ka ku qoran hoostiisa ayaad ku arki doontaa show hadaad raahid hoos ayaa ku arki doontaa iyadoo qoraal ah meesha ayaan soo dhigi doonaa cashirkeena muxuu ku saabsan yahay soo dhawaada hadii aad tahay ardada nagu xiran ee channel-ka ku xiran waad mahadsantahay sida aad noola socotid waxaan rajaynaynaa inaad wax badan faa'iido doonto hadii aad nagu cusub tahayna ama aad ku cusub tahay cashirka marka ugu horeysay aad daawanaysidna fadlan u gudbi oo la wadaag saaxiibada kale ee jecel inay luqadaha bartaan sida luqadda Jarmalka kale waayo luqadaha in la barto sida wax badan idinku sheegayba waa sunno in luqadaha la barto hadii aad luqadda Jarmalka daadisay oo aad isleedahay grammarkan waa easy ku yahay waxa laga yaabaa dad aysan easy u ahayn inay jirto isla markaana ku cusub wadamadan Deutschlandka ama afka Jarmalka looga hadlo sida Switzerland Jarmalka Austria wadamada afka Jarmalka looga hadlo ama hadaa rabtid Soomaaliya meesha rabtid joog aad rabtid luqadaada inaad sare u qaadid intaba waad la socon kartaa darsiga isla markaana waa baran kartaa mar walba oo aad luqad baratid advantage faa'iido ay aad ku tahay shaqadaada ay faa'iido u tahay wax walba ay faa'iido u tahay waayo caalamka hadda la joogo linguistic qofka luqadaha badan ku hadlo shaqooyinka priority ahmiyad gooni ayuu leeyahay cashirkeena ayaan guda galeynaa ee ila socda waaya cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay caawa oo aan rabaa inaan sharaxo adjective indungen im nominative horay cashirada waan u soo qaadanay waxa nominative la yiraahdo nominative waan soo qaadanay ma rabna inaan ku noqono hadii aadan aqoon fadlan YouTube-kayga dib ugu noqo videoyada waad arkaysaa anagoo sharxayna waxa nominative u yahay waaya marka bestimmte article bestimmtina waa naqaan si laftirkiisa waan soo sharaxnay bestimmte waxa la yiraahdaa in English-ka definite article-ka loo isticmaalo waxyaabaha la yaqaan loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa waxyaabaha la garanayo ama la yaqaano article-ka loo isticmaalo ayaa bestimmte article la yiraahdaa waaya wuxuu ku saabsan yahay marka sifo waa maxay haddaan iraahdo macalin Indos ama macalin Ismaan waa nin xun waan sifeeyay maxaan ku sifeeyay inuu nin xun yahay waxa marka caawa aan ka hadlayna waxay tahay marka la joogo la socdaya ya casirka waxaan rabaa step by step inaan ula socotaan marka la joogo bestimmte article-ka definite-ka ama waxyaabaha la yaqaano nominative-ka marka la joogo caseska Dutch-ka waa soo baranay nominative accusative dative waa soo baranay waaya marka la joogo nominative marka nominative-ka
marka la joogo bestimmte article-ka waxyaabaha sifada magaca waxa lagu daraayo ama waxa laga hormarinayo ayaan baranaynaa marka waxa la sifeenayo ama xumeyn ha lagu sifeeyo ama qurax ha lagu sifeeyo ama xumaan ha lagu sifeeyo ama yaraan ha lagu sifeeyo ama weynin ha lagu sifeeyo markii waxa la sifeenayo luqadda Jarmalka wixii lagu dari lahaa ayaan baranaynaa marka case walba yani marxalad walba waxay leedahay waxyaabo ending ama dhamaad u gooni ah oo lagu sifeeyo marka bestimmte article la joogo maxaa lagu sifeenayaa ayaan caawa qaadanaynaa waaye bestimmte article markii la joogo oo rabna wax inaan sifeeno waxa lagu sifeenaa masculine feminine iyo neutral masculine waa taqaanaan waa labkii wixii nin ah ama nin loo nisbeeyo wixii naag ah ama dhadig loo nisbeeyo iyo wixii neutral nin aan ahayn naagna aan ahayn intaba wuxuu ku dhamaanayaa sifadaas waxa lagu sifeenayo wuxuu ku dhamaanayaa aakhirkiisa war inta isla faane wuxuu ku dhamaanayaa ayuu ku dhamaanayaa xasuusnaada markuu ku dhamaanayo waxaan joognaa marxaladda bestimmte aan joognaa nominative ah bestimmte article waxaan tagi doonaa bestimmte oo ah article-ka loo isticmaalo dadka aan la garanaynin dhamaad gooni uu leeyahay asagana sharci gooni uu leeyahay mid walba sida ay tahay inaad gooni isha ugu qabatid oo gooni u fiirisid oo gooni u xifdisid ayaa laga rabaa marka bestimmte article marka joogno waxna aad rabtid inaad sifaysid sifadaas dhamaadkiisa waa inay ku dhamaataa intaas waa isla faahna umaleynaya markii jamac la joogo marka plural jamac markii la joogo bestimmte article la joogo waa inay ku dhamaataa an maraba hadalka iyo sharaxaada sabuuradan ma aragtaan inaan ku badiyo iyada oo black screen ayaan hadda idin soo dhigayaa oo aan sharxayo tusaalena aan ka bixinayo la socdo cashirka waad mahadsantihiin waa tahay waxaan sii wadanaa sharaxaada cashirkeena anoo tusaalahan idin siinaya ee ku soo dhawaada Beispiel waa tusaale laakiin adjective indunken waa sifooyinka ku dhamaanaya ama dhamaadka sifooyinka waxyaabaha lagu garto im nominative bestimmte article article-ka mataqaanaa waxyaabaha la isla yaqaan nominative ah nominative-ka ah Beispiel tusaale ahaan caasho is shown caasho way qurxoon tahay caasho way qurxoon tahay maxaa sifadii ah quruxdaas waa sifo waxay sifeynayaan in caasho qurxoon tahay waaye adjective state hinter dem nomen marka adjective muxuu joogaa behind ama after the magaca gadaashiisa ayuu joogaa yani shown ayaa horeyso magaciina gadaal uu joogaa marka saan oo kale magac uu gadaal u joogo sifada ma lagu daraayo sifada hadda idin soo sheegay sabuurta ku sheegay oo magaca sifada waxa lagu darayaa aan idin dhahay markii bestimmte la joogo ma lagu daraayo hadda sababtoo ah magacii iyo sifadii waxa gadaal joogo magacii markaano kale lagu dari maayo okay oo waxa lagu yiri adjective state hinter dem nomen waa markaan caasha tusaale kale waaye is eine schöne Frau is eine schöne Frau markan shone ayaa lagu daray oo sifadii waa la sifeenoyaa maxaa la sifeenoyaa Frau oo naagta ah oo caasha la sifeenoyaa shone Frau waaye adjective state for them nomen markan adjective-ka hortiisa magaca joogo maadaama magaca hortiisa uu joogo waa la sifeynaa marka maxaa la sifeenoyaa Fraudaas la sifeenoyaa saas ina u fahantaana loo baahan yahay der nette man ninka wanaagsan ninkan maxaa lagu sifeeyay inuu yahay nin wanaagsan arbeitet als pilot wuxuu u shaqeeyaa sida pilot ninka diyaaradda wada kale u shaqeeyaa nette u dambayso soo ma jeedid der nette u dambayso waa nin wanaagsan arbeitet wuxuu u shaqeeyaa als pilot sida pilot oo kale u shaqeeyaa diese Regel marka sharcigan gilt wenn ich auch zwei adjective habe sharcigan sidoo kale wuxuu shaqeynayaa markii laba adjective ama laba sifo jumladii ay ku jirtana wuu shaqeynayaa diese Regel gilt wenn ich auch zwei adjective habe laba sifo marka aan haysto ayuu shaqeynayaa oo sidee waaye Beispiel tusaale ahaan der junge nette man ninka yar ee wanaagsan
arbeitet als Pilot wuxuu u shaqeeyay sida pilot meesha laba sifa ku jirta marka junge waa nin yar haddana nette wanaagsan saasoo kale markay tahayna sifada eeda ah ayaa shaqeynayso oo ugu dambeynayso si loo sifeeyo ayaa shaqeynayso waxaa lagu yiri marka tusaalaha macnaha diese Regel gilt wenn ich auch markii sidoo kale aniga zwei adjective habe marka laba sifa aan haysto aniga way ii shaqeynay regelkan oo eeda ah sidoo kale way ii shaqeynay bestimmte article marka la joogana wuu ii shaqeynaa oo sifada mar walba ayaa lagu darayaa laakiin waxa si goorbay dhacayaan waa marka oo mataqaanaaye for them nomen oo magac ka horeeyo waa sifada laakiin hadduu magac ka horeynin ma shaqeynayso waa sida tusaalihii hore aan ku soo aragnay Aasha iyo Sean aan ku soo aragnay waaye Die schöne Frau naagta qurxoon is fotomodel waa fotomodel naagtaas qurxoon waa fotomodel schöne sidoo kale ayaa lagu daray jamaca marka wuu ka duwan yahay die roten rosen ubaxyada cascas die article kan jamaca waa loo isticmaalaa feminine kan dhadigana waa loo isticmaalaa waaye labkana waa der laakiin markii dhamaadka sifada laga hadlayo kulli bestimmte article la joogo kulli ayaa u dambeynayso nette hadduu nin yahay nette hadday naag tahay nette haddii kulli ayaa u dambeynayso sharciga oo sidoo kale wuxuu guldig noqonaa lagu yiri haddii diese Regel gilt wenn ich auch marka aniga sidoo kale aan isticmaalayo laba sifana sharcigaasna uu ku shaqeynaya intaas xasuusnaada marka feminine marka laga hadlayo marka die schöne Frau ist fotomodel naagta qurxoon waa fotomodel waa markaasi feminine way iyadoo jamacana isla diida ayaa la isticmaalayaa article-ka di jamacna uu noqdaa feminine uu noqdaa die roten rosen maxaa u dambeynaysa markan an ayaa u dambeynayso sifadan an magacani an magaca la sifeynaa waa rosen roten rosen soo sinchon way qurxoon yihiin waaye marka xasuusnaada jamaca markay tahay oo la sifeynaa waa an ayaa u dambeynayso waaye halkaana waxaan idinku sharxayaa si kooban masculine waa der nette man article-ka masculine-ka bestimmte article marka la joogo waa der feminine marka la joogana waa die schöne Frau fiiri marka eeda way ka wada sabiyihiin nette u dambeyso schöne oo naagta ah schöne Frau oo naag qurxoon ah u dambeyso neutralka ama waxa nin ahayn naagna ahayn isla sidoo kale waa das kleine kind cunugan yar kleine u dambeyso article-ka loo isticmaalo waxa nin ahayn naagna ahayn waa das ilmahana das loo isticmaalo ilmaha yarka plural markay tahay marka pluralka waa die roten rosen intaas ayaan ku soo gunaanadayaa ma rabo inaan idinku sii badiyo sharaxaad fara badan isku day inaad qoraalka qortid tusaalaha iyo isku fahamtid iyo sharaxaadka kooban inaad isku fahamtid isku day intaas ayaan ku soo gunaanadayaa saaxiibayaal meel walba iga daawanaysan waad mahadsantihiin intaan barnaamijkan oo kale taan ku kulmi doonana waa walaalkiin wari indhow soo idinkaga tagayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh